A very important conversation. Wada sheekaysi. A very important conversation. Wada sheekaysi aad muhiim u ah about ku saabsan trip, safar, or traveling to another country markaa u safrayso waddan kale. So, what is the purpose? Waa maxay hadafka ama ujeedka of your trip ee safarkaaga? This is the first question. Su-aasha ugu horreyso koowaad. What is the purpose? Waa maxay hadafka ama ujeedka of your trip ee safarkaaga? Answer kaga jawaab truthfully, si run ah and specific, si cad oo aana shakiba ku jirin. Explain, sharax the reason, sababta for your trip ama visit ee booqashadaada, whether it is for tourism haddii ay dalxiis tahay, business, ganacsi, education, waxbarasho, or visiting ama aad soo booqanayso family, qoys and friends iyo saaxiibo. The answer jawaabta my purpose, hadafkayga ama ujeedkayga for this trip ee safarkani is wuxuu yahay to attend inaan ka qayb galo a business conference, shir ganacsi, and meet with lana kulmo business partners, rafiiqa ganacsiga. Where will you be staying? Xaggee baad joogi doontaa during inta lagu guda jiro your trip safarkaaga? Marka su-aasha noocaana lagu weydiiyo, provide waxaad bixisaa the name, magaca, and address iyo cinwaanka of your accommodations, sida a hotel, hotelka degileed, or the home, guriga of the person, shakhsiga ama qofka you are visiting aad soo booqanayso. I will be staying, waxaan joogi doonaa at the Garand Hotel, hotelka Garand, ama hotelka doonto sheego marka asaga, in downtown ee magaalada hoose ku yaalo. Waa su-aashii labaad iyo jawaabteeda. How long will you be staying in the country? Ilaa intee baad joogi doontaa waddanka? That's the third question. Waa su-aasha saddexaad. Hope waxaan filayaa inay caawi doonto. How long will you be staying? Ilaa intee joogi doontaa in the country waddanka? Provide waxaad bixisaa the exact dates, taariikhooyinka saxda ah of your planned stay, joogistaada ku qorshaysan, including ay ku jirto ama ay ka mid tahay the arrival and departure dates, taariikhooyinka imaanshaha iyo kuwa dhoofitaanka dhoofaysa. The answer jawaabta I will be staying I will be arriving waxaan imaan doonaa on June 1st, kowda bisha 6, and departing waxaana dhoofi doonaa on June 15th, 15 bisha 6, which is taasoo ah a total of 14 days, totalkeeda 14 maalmood in the country aan waddanka joogay. What is your occupation? Shaqadaada maxay tahay baa lagu yiri. What is your occupation? Shaqadaada maxay tahay? State, sheeg ama caddee. Your profession, shaqadaad xirfadda u leedahay. Or job title, ama shaqadaada cinwaankeeda. I'm a software engineer. Waxaan ahay engineer software ku shaqeeyo. Working for u shaqeeyo ABC company, shirkadda ABC company.